kulantii wanaagsan asxaabta qiimaha leh ee ku xiran barta YouTube-ka Idaaja Media kuna soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub daawada balka waran haddii aad xabsi ku mutaysato inaad ogolaato codsi guur ah oo lagu soo bandhigtay waa dhacdo la yaab leh oo toddobaadkan gilgishay dalkaasi Nigeria kadib markii gabar askariyad ah ay wiil ka ogolaatay codsi guur ah taasoo markii dambe la xiray haddaba si aad u ogaato sababaha keenay xariga gabadhaasi fadlan dhamayso muuqaalkan afhayeenka ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay in askariyad ka tirsan ciidamada dalkaasi ay xabsiga u taxaabeen kadib markii ay aqbashay dalab guur ah oo loo soo jeediyay xilli ay shaqo maalmeedkeedii ku guda jirtay wuxuuna intaa ku daray in askariyadda ay ku xadgudubtay xeerka ciidamada u yaala ee dhigaya in askariyadda iyadoo tuutaha ciidanka xiran inayna jecel jili karin muuqaal toddobaadkan qabsaday baraha bulshada oo lagu arkayay nin jilba joogsaday oo askariyadda hor fadhiya guurna ka dalbanaya iyadoo dadka dhacdadaasi goobjooga u ahaa ay farxad ka muujiyeen kooxaha u dooda xuquuqda haweenka waxay ciidamada ku eedeeyeen in askariyadaasi takoor ay kula kaceen ragga askarta ah oo iyagoo tuutaha ciidamada xiran ama shaqada ku guda jira meel fagaara ahna dalabka noocaas looga soo jeediyo tallaabo noocaas oo kala ah lagama qaado ayay yiraahdeen koox arrimaha haweenka u dhaqdhaqaaqa sharciyadana ka caawiya Omoyolo Sowore oo ah xubin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha horena u soo noqday musharax madaxweyne oo cambaariyay falka ay ciidamada kula kaceen askariyadda waxa uu ku tilmaamay dhaqan xumo askariyadan la xiray ayaa dalabka guurka waxa uu soo jeediyay arday tababar ka qaadanaya nidaamka tababarida dhalinyarada ee dawladda ee loo yaqaano NYSC qorshaha adeega qaranka ee qasabka ah waxa ka qayb ah ardayda ka qalin jabisa jaamacadaha iyo macahadyada tacliinta sare waxayna casharada ka qaataan ciidamada dhexdooda dalabka guurka askariyadda loo xirayna waxa uu ka dhacay barnaamijka tababarka ee ka socday gobolka Kawara ee dalkaasi Nigeria xilliga saxda ah ee arintan dhacday lama oga balse muuqaalkan ayaa toddobaadkii hore baraha bulshada qabsaday dad badan oo isticmaala baraha bulshada waxay hambalyaha wada u marinayaan lamaanaha iyagoo bogaadinayay dalabka wiilku askariyadda guurka kaga dalbaday halka qaarna askariyadda ku jeejeeseen afhayeenka ciidamada General Kalamta Wankawa wuxuu BBC-da u sheegay askariyadda inay ku xadgudubtay anshaxa askarta gaar ahaan isticmaalka baraha bulshada habdhaqankeedu wuxuu ahaa mid wax u dhimaya nidaamka wanaagsan ee anshaxa ciidanka ayuu yiri macalinka ama askariga tababaraha ah waajibka saaran wuxuu yahay inuu ardaydiisii tababar siiyo balse ma aha inuu la sameesto jacayl ama xiriir kale nooc uu doono ha noqday ayuu yiri General Wankawa oo la hadlayay BBC si kastaba ha ahaatee dhacdadan ayaa noqotay tan ugu hadalheynta badan ee ka taagan dalkaasi Nigeria iyadoo hay'adaha xuquuqul insaanka ay arintan ku tilmaameen mid aad looga xumaado waxayna shacabka dalkaasi Nigeria wax iska weydiinayaan dhacdadan iyo qaabka askariyadaasi ay xabsiga ku mutaysatay